saaxiibayaal markale muuqaalkan maanta waxaan kula wadaagayaa markii u horeysay aan raacay Uber Boat waxaan kala kulmay dhammaan macluumaad kasta oo ku saabsan haddaan hordhacay yar idinka siiyo waa doon kamid ah doomaha ka dhex shaqeeya webiga caanka ah ee London dhex mara taasoo badanaa dadku ama dalxiisayaashu ay isticmaalaan ama badanaa qaada doomaha ka dhex shaqeeya webiga dhexdiisa waa kala gidsiin waana farabadan mid kasta la magac gaaray leedahay laakiin taan maanta isticmaalino waa taas muuqaalka bilowgiis aan ku soo sheegay oo ah Uber intaan muuqaalka gudaha u soo gelin saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay channelka waxaan kaga hadalnaa vlogsiga faa'iideysiga teknoolajiyada labada hadda ka mid ah dadka xiiseeya waxaan rajeynayaa nagu soo biirto fadlan muuqaalka like noo saar subscribe-na leh هذا مقالكن كوسو لابن مقالكن wuxuu ka bilaabanayaa meeshan waxa weeyaan waa Westiga London ama galbeedka London saaxiibayaal waa meesha doonta safarkeeda uu ka bilowdo ama uu ku dhamaado doonta badanaa waxay ka shaqeysaa galbeedka ilaa iyo bariga east ilaa west markay safarka ka soo bilowdo bariga halkan ku dhamaado oo westiga haddii halkan ka bilowdan east uu ku dhamaanaya marka waa saas hadda doontii waa soo istaagtay waxaan marinaa boondadii ama albaabkii laga galiyay doonta labadaas caag oo yararka oo taagan oo bulug xigeenka u jeedaanba waxa saaraysaa kaarkaaga bangiga ama sidoo kale waxa ku isticmaal karta Oyster card baarka la yiraahdo oo tareenada basaska lagu isticmaalo waxaan soo soconaa saaxiibayaal waxaan soo galnay doonta gudaheeda waxay ogtaa sidan hadda u jeedaan oo muuqata aad arkaysaan waa laba qaybood qayb koobaad oo horeysana iyo qayb dambe oo tabtisan oo kala sidoo kale waxa leedahay line dhexdaayo asna taas kale u jeedaan oo dheer waxa intaas si dheer waxa leedahay qayb dambe ama kuraas dambe oo banaanka ah oo wax way ku saacidaysa ama ku suurtagelinaysa inaad view fiican heshid oo dhammaan aragtid doonta hareeraheeda iyo gadaasheeda intaba muuqaalkan arkaysaan waxaan duubay anoo doonta dhexdeeda ku jira runtii waa view inaba caadi ahayn muuqaalkan kalena waxaan duubay anoo jooga kuraasta banaanka ah waxa weeyaan marka gudaha ku jirtay marka banaanka ku jirtay labadaba waxa helaysaa view aan inaba caadi ahayn oo runtii wax 100% ku raaxaysanaysid sidoo kale waxa jeclaan lahaa inaan idin la wadaago qiimaha lagu raaciyo doonta iyo sidoo kale service-ka laga dhaxeliyo laakiin intaan kuwaas u gudbin bal waxay la daawataan muuqaalkan inaan la wadaago bangi aan isticmaalo bangiga magaciisa waxa la yiraahdaa Wise runtii aad iyo aad baa uga helay adoo wax weeye wadan jooga wadan kale akoon bangi ka siinaya sidoo kale wuxuu ku fiican yahay haddii aad rabtid inaad meel kale aado kale ma u baahnaa lacag sarifta automatic asaa ku sarifaya waliba qiimo hoose buu kugu sarifaya kale haddii rabtid inaad UK ka baxdo oo Europe aado kale ma u baahnaa lacag sarifta automatic asaa ku sarifaya haddii Europe joogto xataa laga yaabo in Scandinavian-ka sida Sweden oo kale lacagta koronta asaa ku sarifaya haddii meel kale joogto laga yaabo xataa East African aad Kenya oo kale automatically ma baahnaa lacag sarifta asaa ku sarifaya wuxuu kugu sarifaya Kenyan shilling waxa intaas dheer haddii rabtid inaad akoon wadan kale ka furatid wax hal daqiiqo yar buu kugu furaya linkiga bangiga saaxiibayaal waxaan dhigayaa muuqaalka description-ka sidoo kale qaybta comment-ga aan dhigayaa halkaas ka raaci karta haddii aan muuqaalkan ku soo laabano doonta waxa ku dhex taala makhaayad sida muuqaalka ka dhex arki kartaan taas oo ku suurtagelinaysa inaad wax ka dalbatid ama wax ka gadatid aniga waxaan ka gatay biyo waxaas u jeedaa biyaha caadiga qiimahaana waxa ahaayeen 2 pound iyo bar oo lacagta UK ah taas oo ka dhigan qiimo ahaan inaysan raqiis ahayn waxyaabaha ay meesha ku dhex iibinayaan haddaan isla fiirino dhan kale qiimaha lagu raacayo qiimaheedu wuxuu dhaxayaa lacag 10 pound ilaa 20 pound ah hadba waxay ku xiran tahay masaafada aad saaran tahay iyo meesha aad kaga degaysid intaa waxa si dheer waxay leedahay boostooyin ama stop hadba maartay dadka raacaan ama ay kaga degaan dadka qaarkood doontan inta saaran tahay waxa ku suurtagelaysa inaad aragtid ama aad daawatid London meelaha ugu muhiimsan meelaha ugu caansan iyo meelaha aadka loo xiiseeyo kuwaas oo ka mid yihiin Westminster xarunta baarlamaanka xukuumadda UK sidoo kale Canary Wharf meesha dhismayaasha ugu dhaadheer UK London ku yaalaan sidoo kale waxa awood u leedahay arkaysa ama ku suurtagelaysa inaad aragtid Tower Bridge iyo sidoo kale Millennium Bridge haddii aad London joogtid ama jeclaan London inaad timaadid waxaan kugula talin lahaa inaad tijaabisid doontan iyo safarkan webiga dushiisa ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay muuqaalkeena dhamaadkiisa saaxiibayaal waxaan rajeynayaa haddii halkan aad soo gaadhay inaad muuqaalka like noo saartid sidoo kale subscribe aad tirahdid intaa waxaan ku sidiri lahaa waxaan leenahay channel Telegram kaasoo bil walba aan soo dhigno buug wax akhriso oo Soomaali ah marka haddii aad tahay dadka wax akhriska jecel waxaa ku soo beeri kartaa channelkana Telegram waxaana dhigayaa qaybta comment-ga iyo qaybta description-ka ee muuqaalka